بلوغ وادن جود وادن تي جود بيرتي أوجي يقعد أنت أبهاي كده أنت كهري لبيه تبص النوع على هيد وسعرده وحبرشده وراغيه دينا وان هيا أو شعير كسح هي بلوغ سواء كان ديسمبر كيان عدي دستوي لبا جلاسو دكسي هوسا أوفيسكي أو قلبيسن أو أرتدي كوتشتا أرتدي تات هيد مساجدكي مسؤوليه أو كواسو لبا مدن مدحوينه waxaan ka codsanayaa adiga hay'adaha amniga cid alaale cid ay qusayso waxaan ka codsanayaa in arintan Ismaaciil Buuba waxaan lagu haystay iskuulkii oo furan siyaasigii caanka ahaa ayaan islahayn waxbu tari doona Ismaaciil Hurre Buuba ninkaas oo doonaya in ardaydaasi taarku xulay dadka taarku xulay deegaanku inay jahli halka ugu gadoomaan mudane madaxweyne waa masallihii 5 maylka abaar caana leh wixii dawladna soo martay Soomaaliland iyo Soomaaliyaba madaxweyne adiga nasiib u yeeshay inaan iskuul helo oo masaajid helo Hargeysa jaamacad ku soo tukan jirnay mudane madaxweyne waxaan ka codsanaynaa inaad cid la shaqeynaysa Ismaaciil Buuba ee dadka u boobaysa wax ka qabato halka baloog 12 sanadood wuxuu diiwaan gashanaa wasaaradda waxbarashada si ninkii hore sheegay cid wax ka qabata ayaan weyni cid walba waan u cabanay kadib annaga ayaa guntanay annaga oo kaashanayna dadka deegaanka iyo beesha wadankan degan dadkaasi oo aan lahayn wax iskuula oo ka sokeeyay iskuulka Singa meesha la yiraahdo ka dhisan waa yar ma gaari karaan dugsiga ku yaala libaaxyada iyo Singaha taar baa ku xidhan wajahadooda oo meel ay maraan ma haystaan waxaanu sameynay inaanu annagu tabarucaad baloogi danta guud ahaa ee annagu aan u calaamadnay ee kaliya ahaa ee beertayada ka harsanaa intii kala cid cuntay garanayna annagu iyo cid ay ku baxday waa wada seesayin waraaqa been abuura lagu qaatay kii harsanaa markii aanu annagu guntanay waxaanu ka dhisnay iskuulka arkaysaan markii aanu dhisnay waxa meesha noogu yimaano ku qaabilay wasiirka waxbarashada iyo wasiirka macdanta iyo biyaha iyo wasiirka diinta iyo waqafta dhammaan way nagu soo mareen waana hambaliyeen waxaana noo dhagax dhigeen 8 galaas in loo dhameystiro iyadoo beeshu ay ku faraxday dadkuna ay aad u soo dhaweeyeen ayaa waxa dhacday in baloogi waraaqa been abuura maanta loola soo baxay waa balooga dhisan arkaysaan ardaydii dhiganaysan dhex fadhido xisbiga waddanina fariimaan u furaya halkan ka faa'iideystay waxaan oo la xisbiga waddan waxay maalin walba ku cambaarayaan xukuumadda maanta jirta inay boobto dadka danyarta dhulkooda waxa anaga maanta haystay in xisbiga waddan siyaasiyiinta ugu tunkan weyn leh ninka la yiraahdo Ismaaciil Hurre dadka danyarta iska dhibaataysan dhakhtar lahayn iskuul lahayn maamad lahayn baanu nay hooyooyinkaasaanu nay afarta habeenimo ay caruurteedu gudaa waraabaha naga guranaya ilmo yar 5 sano jiray oo meel maray iyo meel tagay toona aanu garanaynin oo qudhac dheer ugu sokeeyay iyo Singa iskuul ugu sokeeyo ayaanu nahay marka madaxweynaha sharafta leh waxaan ku codsanaynaa ninka Ismaaciil Buuba la yiraahdo iyo xulufadu wato in laga qabto tabaruca aanu dhisnay waxaan laga qaaday 4 beerood baanu nahay 36 baloog 36 baloog dawladdu nagala wareegtay ilaa saldhigyadii ilaa iskuuladii ilaa masaajidadii dad baa loo soo qoray uu ka mid yahay ninka Buuba la yiraahdo 36 baloog oo nagu soo hareen maayirkii Jiciir noo reebay 36 baloog 7 ka mid ah ayuu ina Buuba ninka loo soo qoray iyo dad wato marka madaxweyne waxaan ka codsanaynaa bacdama taarkana lagu xidhay oo taarkana lagu dadkayga taarka ku xidhay ku xanibay yihiin in iskuulada iyo masaajidada inta naloo hadhay naloo tixgeliyo oo naloo reebo ardayda imika aanu ma garanaysa ku joogta ee iskuulka imika dhigata waxa weeyaan 150 baa imika jooga waxaan ku mana dhadhawo oo fare kama qodna markaas deena ma garanaysa meeshii loo sii diyaariyo wax lagu bari lahaa iyo loo baahay anagoo macallimiintii iyo ma garanaysa ay waalidiintii iskaashanayna ayaan imika joognaa warqada been abuura inta hore waa lagu qaatay oo fool jariye tan ay ku doorayaan imika tii hore ee kana ku doorayaan waxaan cadaynaysaa waraaqaha waa gacanta imika aan ku hayno iyo cadaynaya labada qol ee ay dadka deegaankani degan halkan ka dhisteen ayaa waxa dhigta arday ay tiradoodu kor u dhaafayso 150 arday oo uu xidhay taarka madaarka diyaaradaha oo ku beegan halka ay dadkani degan yihiin waana dhul u diiwaan gashan xukuumadda Soomaaliland sida ay sheegeen waxayna sheegeen in isla bishan gudaheeda uu ku soo maray wasiirka waxbarashada iyo sayniska isla markaasina uu dhagax dhigay 8 qol oo loogu kordhinayo labadan qol